iyadoo lagu wado inuu soo gaaro magaalada Garowe ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa shacabka ku sugan magaalada Garowe waxay cabireen dareenkooda ku aadan imaanshaha ra'iisul wasaaraha goobaha ugu caansan magaalada ayaa waxa lagu xardhay sawirro muujinaya soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadaba waa kuwan qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Garowe oo warbaahinta SBC uga waramaya dareenkooda magacaygu waa Xabiib Faarax waxaan halkan ku cabirayaa shucuurtayda muwaadinimo ee ku aadan imaatinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Garowe ku imanaya Britol hadii alla karaale noqdo waxaan rabaa inaan Soomaalida u sheego inaan haddaan nahay reer Puntland aan nahay dad ku wanaagsan soo dhaweynta iyo Sooriyada dad wadaniyiina dad ehelkooda jecel dad qaraabada jecel dad martida jecel soo dhaweeya karaameeya weyneeya ra'iisul wasaare Kheyrena maadaama xukuumadda aanu soo dhaweynay madaxweynaha Soomaaliya oo aanu si wanaagsan oo heer sare u soo dhaweynay waxaan rajaynaynaa inaan heerkii aanu ku soo dhaweynay iyo qalbigii niyadii madaxweyne farmaajo mid la mid ah ama ka sareysa aan ra'iisul wasaaraha tusno waxaan rajaynaynaa si loo soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane farmaajo si ka badan oo ka baaxadoon in loo soo dhaweeyo kale waxaan rajayn doonaa inuu bulshada dhan ama Puntland oo dhan tagi doono suu markii ugu horeysay baan filayaa uu yimaado Puntland dhulka Puntland oo halka ay ka jidho nabad iyo nolol oo xukuumaddiisu astaan u ah run ahaantii dowladda Puntland mudane ra'iisul wasaare waa ka warhaysaa hooyadii federaalka weeye inta ay ka soo qayb qaadatay federaalnimada iyo dib u heshiisiinta nabadda ummadda Soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ku soo dhawow dhulkaaga hooyo waxa uu imaan doontaa insha Allah dadku jecel qalbi ahaan qulub ahaan yamaan ahaan intaba waxa tahay ra'iisul wasaare loo soo diray ummadda Soomaaliyeed isaga iyo waliba madaxweyne farmaajo xaqiiqdii waqti adeegna ka saaray gacmo furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay reer Puntland waxaanu dadka ka codsanaynaa inay soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisa waa markii ugu horeysay tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu soo gaaray magaalada Garowe waxaana la filayaa inuu ka qayb galo xafladda sanad guuradii 20aad ee aasaaska Puntland Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani warbaahinta SBC magaalada Garowe